ballaanka wax ka barta dugsiga hoose dhexe degmada Qurlugud oo soo wajahday xaalad adag isla markaana fadhiya ciida waxna ku baranaya geed hoosti qaarkoodna ay jingado ku hoos baranayaan telefishinka caalamiga Ariel ayaa saaka u kurgalay xaaladda cakiran ee ka taagan dugsiga hoose dhexe degmada Qurlugud ugu horeeyba maamulaha dugsiga hoose dhexe degmada Qurlugud Xaashi Siciid Axmed oo ku sugan xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay waxaanu sheegay ilaa iyo 2007 aanay waxba ka qaban wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo xukuumadii ka dhashay xisbiga haatan talada dalka ay kulmiye isagoona fariin u diray xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha iyo cid kasta oo wax ka qaban karta xaaladan cakiran ee dugsiga hoose dhexe degmada Qurlugud galay anigoo maamulaha dugsiga hoose dhexe ee degmada Qurlugud halkan waxaan maanta ku qabanaynaa ama aanu kaga warbixin doonaa baahiyaadka ka taagan dugsigan hoose dhexe fasalada iminka noo dhisani waxa ay maray wax weeyaan waa 6 fasal dugsigan wuxuu ka kooban yahay 10 galaas ayuu ka kooban yahay sidaa daraadeed ardadii wax weeyaan saad arkaysaan waxa jira qaar meelo cidla fadhiya banaan aan gogol lahayn oo aan hooy lahayn waxa arki karaysaan kuwa fadhiya jingadaha oo aad iyo aad markay qorraxdu kululaato aad iyo aad u dhib badan oo ardadu markaasi aad ugu kululaato taas waxa weeyaan waa duruuf taagan waxa kale oo kamida ardadu waxa weeyaan waxa kamida iyaguna qalabka dugsiga oo aad iyo aad noogu yar haday tahay xagga kuraasta haday tahay xagga dhismaha haday tahay xagga miisaska ayaan la aad baad mahadsan tahay wasaaradda waxbarashadu in badan baan hay'adaha la shaqeeya muddo 12 sano aan dugsiga aanu ka shaqeynayay 12 sanadood inta waxa imanayay hay'ado kala duwan waxbay qorayeen waxbaanu qabanaynaa way lahaayeen waxayna hoos tagaan dee wasaaradda waxbarashada inta waxay nagu lahaayeen waxaanu idin dhisaynaa 2 galaas oo ka dhiman dugsiga ama 3 fasal ayay intaaba naga qorayeen 12 sano ilaa iyo maanta 2018 la marayo ilaa 2007 laga soo bilaabo wax haba yaraatee yaani maanu arag oo ay noo qabteen oo dhisma ah waxa noogu darina waxa weeyaan waa dhisma iyo qalabayntiisa dugsiga marka saa daraadeed waxa weeyaan dee wasaaraddu iyadu ma hay'adahan hoos tagaan oo xukunta geesta kale dhalinyarada iyo maamulka degmada Qurlugud ayaa nasiib darro ku tilmaamay xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin dhalaanka degmada Qurlugud waxaanay farta ku fiiqeen meelo gaar ah xukuumadda Soomaaliland culayska saarayso dhalinyarada geedka hoostiisa wax ku baranaysaa diwo subxaan codka degmada Qurlugud laga qaato codka xukuumadii marka wadankaas taaba ilaa tidii taariyaal xukuumadda codka ugu badnaa Qurlugud uu ka hela tii Siray uu ka hela Muuse uu ka hela kii walba inuu codka ugu badan ka hela dhowtoon inuu garanaysa Hargeysa Gabiloo laga shaqeeyo oo Gabiloo Hargeysa laga shaqeeyo halkan xagga bariba loo soo dhaqaaqayo diwo min Allah fariintan diriya waxa weeyaan u diriya xukuumadda fariintan u diriya waxa weeye degmada Qurlugud xaaladda ka taagan waa dawlad la'aan taasna development wax dawladda oo degmada Qurlugud ka jira ma jiraan qayb aan mushahar qaadan way jirtaa arinta noogu muhiimsan waxa weeyaan ardadii abaartu ku dhacday dadkii abaarta ka soo xorooday ee deegaanka ku soo xorooday ardadii uulada ahayd ayaa aan haysan fasaladii iyo kuraastii iyo miisaskii iyo qalabkii midnaba waxa hore u dhisan dhir hoosteed iyo jiingado loo tiiriyay gudbinay tan waxaanu u gudbinay wasaaradda waxbarashada waxaanu u gudbinay gobolka Togdheer waanu gudbinay baahida waanu gudbinay xilligii daahir riyaale xilligii Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayana iskuulkan wax qabad laga qabtay ahaynka Cabdalle Muuse Lule ma jiro kastaba haatee xukuumadda Soomaaliland ayaa waqtigay baahida u qabto dadka reer Qurlugud u soo bandhigta inay wax qabad muuqda u qaban doonto balse maanta ay xaaladan kaga sugan yihiin degmada Qurlugud ee gobolka Buuhoodle ayaa ku fadhida baaxad ballaaran isla mar ahaantaana ay ku nool yihiin dad lagu qiyaas ilaa 10,000 oo qof. Waayaan Ciga Ducaale Al Bukhari Ariel TV degmada Qurlugud Buuhoodle.